maxaan ku dhahdaa bishii dabaaldegii 18 May waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo go'aamiyey in 18 May dabaaldegeedii iyo buqaan buqi aynu sanad walba samayn jirnay 25 sano la soo dhaafay inaanu sanadkan sidii u dhicin in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hadday tuulo tahay lacagtii lagu dabaaldegi jiray in loo bedelo gurmad abaaraha ah waxaa kaloo la go'aamiyey hadday tuulo tahay iyo hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahay iyo hadday caasimadda tahay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadday qurba joogga tahay meel kasta ay joogaan inay sanadkan kuntiga dhiisha iskaga dhigaan oo ay si adag ay uga fikiraan sida aynu gurmadka abaaraha uga qayb qaadanayno oo wax kasta oo dabaaldegaasa aynu u bedelno qaaraan ururin aynu dadkeena abaaruhu ka maxaan ku dhahdaa soo barakacay ee ay abaaruhu saameeyeen aynu maxaan ku dhahdaa la wadaagno dad badan baa jira oo xoolihii ka baxeen hadday xoolo iibis tahay waanu dadka dib u xoolaynayno iyo hadday tahay sidii loo daryeeli lahaa intaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu go'aamiyey oo goostay isagoo dawladdiisana ku amraya shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaya ilaa maalintii dalkan la soo galay aynu xorriyaddeena dib ugu soo qaadanay inaynu nahay ummad isku tashatay isku tashigaas aynu isku tashanaynay ayuun bay tan ka mid tahay oo aynu dadkeena ay abaaruhu saameeyeen aynu la gurmanayna markaas haddii xaflada tahay xafladaas waxaa loo bedelayaa qaadaan ururis maxaan ku dhahdaa ummadda lagu taageerayo wixii dawladdu ay ku qaban jirtay qaadaanka xafladaha iyo nidaamyada noocaasna iyo ciidamadii iyo hawlahaas iyo hawshaasna waxaa loo bedelayaa iyadana qaadaan ururis